waxaan ugu horeeyay isgaarsiinta iyo adeegyada kale la xiriira oo ay maanta wax badan inoo fududeysay in aad joogo gurigaaga aad shir ku geli karto ama xafiiskaaga aad kula xiriiri karto xataa luqadaha laftigooda dadku waxay sameeyaan iminka iyagoo luqada garanay translator-ka geliyaan ayar bay nin baa maalin weydii sheegayay company Turkiyo macaamiil yahay mid 2 sano af Turkiga ma yaqaan translator-kaasi ku wada xiriira Turkiguna ma yaqaano Soomaali ama English marka waxay macaamiil dhow ku yihiin waxa weeye inay isku maaragtay isku fahmaan iyagoo adeegsanay marka qaarkood laga yaabaa inay cilad ka timaad laakiin haddana almost wax isku fahmeeneen dawlad wasaaraddan waxaan misalnahay in technology-gu uu yahay halbowlaha iyo lafdhabarta horumarinta dhaqaalaha waxay taas u baahan tahay inaynu ka gudubno heerka adeegsiga ama macaamiil noqoshada technology-ga oo aynu wareegno inaynu wax soo saar aynu la nimaadno taasina waxay u baahan tahay in la dhiirigeliyo hal abuurka technology-ga ee dhaqaalaha tusaale ahaan maanta wax isbedelay xilliyada roobka ay daayeen wax isbedelay deegaanka iyo cimilada wixii la xiriiray wax isbedelay beeraha iyo wixii la xiriiray laftigooda waxa soo kordhay cayaano yaryar iyo dulin beeraha ku dhaca waxa ugu horeeya ee loo adeegsan karaa in wax laga qabto kuwaas waa technology waliba inagu wadanka gudihiisa aynu ku hormarinay jaamacado fara badan baa bixiya adeegyada ICT-ga iyo waxbarashadooda dad badan waxay yiraahdaan dadku ma IT wada baranayaan waa la wada baahan yahay IT-ga cidina ma leh qof ku takhasusay mid kale inta u baahan yahay laakiin naga maqan waxa weeye waxa ardaydu barteen inaynu ku fariisino xaaladeena iyo baahideena marka taynu u baahan nahay inaynu hal abuurka kor u qaadno technology-ga haday noqoto xagga hardware-ka iyo haday noqoto xagga software-ka halka maanta ceel tuumbaynta machine la geliyo biyuhu marna ay ku badanayaan marna ay ku yaraanayaan in la sameeyo system smart oo marka biyuhu ay carrada ku yaraadaan ku sii daayo biyaha oo isagu ismaamula marka ay carradu gaadho heerna biyaha ka gooya mustaqbalka hadaynu karnana geed walba intuu biyo u baahan yahay systemkaas intuu qiyaaso waxa weeye maaragtay u maamula biyaha waxaan u baahanahay waliba loo kala waana la sameyn karaa marka deegtid wixii qalabka jira technology-ga laga sheekeynaya caqabad kama marna caqabadaha la socda caqabadaha ugu horeeya waxa weeye waa farqiga u dhaxeeya dadka awoodda dhaqaale leh iyo dadka aan awood dhaqaale lahayn ama waxa la yiraahdaa digital gap-ka oo ah in bulshada ku kala tagto adeegsiga technology-ga iskuulada kamid ah imika iskuulada dawladda kale wax laga yaabaa inaanay technology-ga aanay u helin fursad ay ku gaaraan laakiin wax laga yaabaa iskuulada gaarka loo leeyahay in ilmaha looga soo bilaabo isagoo wax kamid dadka magaalooyinka iyo jooga miyadu inay ku kala duwan yihiin adeegsiga technology-ga waxa kale oo kamid ah gobolada laftigooda inay kala duwan yihiin marka caqabadaha laftigooda adoo wax ku xalinaya technology-gi iyada laftigeedu waxay wadataa dhibaatooyinka laftigooda in la yareeyo oo maaragtay la fududeeyo waxa kale oo kamid ah technology-ga laftigiisu ugu horeeya baraha bulshada ama social media dadka waqti badan bay kaga qaadaan waxyaabaha aan faa'iido lahayn ama macno badan aan lahayn qof heesaya qof meel maraya laga yaabaa in qofku uu saacado badan ku qaato waa sax marka qaarkood uu isaga baahan yahay bini aadamka laakiin loogu talagalay taana kulleeyay wax qaab wax looga qabno waxa weeye in wacyigelin la sameeyo halkii inaga galisana waxa weeye sidee technology-gu ay u yareynaysaa fursadaha dhaqaalaha ee jiray technology-ga adeegsan lahayd sidee hoos ugu dhigaysaa wasaaraddan marka waxaan aaminsannahay in qaybo badan laga qaado wax kale iyaduna mar walba muhiim ah dhinaca ammaanka Soomaaliya nabad bay ku faantaa nabadda laakiin meel walba askari lama dhigi karo imikada laftigiisa khadaro yarbafti waxa weeye booliska iyo bulshada markaad isku eegtid tirada ay tahay in boolisku adeegaan aad bay uga yartahay mar walba waliba markaad ku darto inta hawlgaba
booliska in badan ka mid ah dad hawlgaba wasiirka maaliyadda uu la socdaa mar walba lagu soo daraa sanadka meel walba askari ma dhigi karno waxaan ka maarin karnaa isaga laftigiisa in technology loo adeegsado magaalooyinka weynaanaya dadka laftigoodu waxay ku soo badanayaan magaalada la soo gelaya da'da iyo tirada bulshadu way isbedelaysaa waxa marka iyaga laftigooda wax laga bedeli karayo dhaqaalaha hadaan amaan haysan jiri maayo marka in infrastructure ama kaabayaasha ay u baahan tahay amnigu oo ay ugu horeyso technology-gu taana in lagu daro si dhaqaalaha horumarkiisu uu sii socdo kullay waa qodob aad u dheer muddo dheer u baahan in laga falanqeeyo laakiin si kooban dhaqaaluhu mar walba wuxuu u baahan yahay horumarkuna wuxuu ku dhisan yahay technology wada arkaysaan imika qof walba mobile baa hor yaalla saacadaha fadhido wax laga yaabaa inaad dhowr boqol goor adeegtid kaasuun aynu ku xidhno dhaqaalaha aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi